عاشقيدا وعني قابكيدا لو دقي تمحيدا إركيو سيدا في أرحبي. عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن مركلي فيديو عسو جنال كاد نقل السعوتان وحباب فاميلا نقو أبو السين سو دوادا مال وناكسن هبي وناكسن صباح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي واسب سو دوادا أصحاب طاري الجوك سو كلا سو دوادا لما انتي مسود دوادا لما انتي نويدود شالهاي إن شاء الله مركلي فيديو كهر جنال كا سبسكرايب نصر لايك شير كوم صحبي على هذا ما سنتهاي سبسكرايب تقول سرنا لايك رين وشير كري لما انتي ما سنتهين مركز إيميل كستبوا إن شاء الله هاي إن شاء الله مركز إيميل كستب أدعي خوف كستب مسلمة ونجح نوصل إنه له عافية تامة نوصية. إن شاء الله إحنا وذا قصة ده بحكي على ذلك أمريكان هلو غير نيويورك نسود ويا فمن الحباب والسعادة. إن شاء الله قصة ده حاول قصة سكير سو مركز إن شاء الله بدين سكوكو بعد ولا يرحله waxay ku dhacday family laakiin warbaahinta caalamka waxa ugu weyn qodob weyn ay ka qaadanayeen waxay tahay gabar yar oo lagu magacaabo Diara Harris oo 11 bil jirta fahmaysa sama 11 bil jirta gabadhan iyo family-geeda hooyadeed iyo aawayadeed wiil la dhashay iyo walaaladeed kale ee hooyadeed dhashay waxay wada saarnay sida la sheegay gaari ayagoo gaari wada saaran soo marka aan gadaal idin cali hooyadii aabaheed gabadhan hooyadii aabaheed waxay kala tageen ayadoo caloosha ku jirto yar soo marka hooyadii marka ilmaha dhashay waxay baratay niman kale iyo rag kale badatay waana dareemaysiin single mother hadii leeyahay waxa waaye hawshu way adag tahay saas daraadeed marka maadaama nin kale ay baratay oo gabadhii aabaheedna saas ku maseeray mar badan wuxuu yiri waxaan u baahanahay inay gabadheedii isiisid ama in ani adiga aan isku laabano ee ka madax adeegta ee tire ma dhacaysan ani adiga isku laabano mana laga yaabo in gabadheedii aan ku siiyo soo marka qasdan waxay dhacday April yani hadda sanadkan oo 2021 ka April 13keeda dhacday soo marka gabadha labadeeda sano waxay buuxsamaysay bishii May 29 May buuxsamaysay isbuuci ayadoo ka dhimanta dhalashadeedii ee qisada ku dhacday marka sida la sheegay aabaheedu uma seersan wuxuu yiri dhowr mar wuxuu ku yiri hooyada ma dhici karto inaad nin shukansatid ama aad nin kale yani aad la sameysad xiriir iyo wax la mid ah waana qasab in aan isku laabano marar badan ee diiday sida yani boolisku soo gudbisay ay tiri ninkan nafsadeedan kaga baqanaya because of marar badan waxay tiri ninkan nafsadeedan kaga baqanaya because markasta wuxuu igu cagajugleeyaa in gabadheedii isii ilmahayga kale isii saddex cunug oo kale oo waxaa jira gabadhan yar ay 11 bil jirta ka weyn ay haysato marka dhowr mar wuxuu leeyahay tiri ilmahayga uu soo wareeji ama aan kugu laabto iyo laak wax la mid ah isla markii marka maalinta ugu dambeysay ee qisada dhacaysa sida la sheegay ayadaba booliska la yani la xiriirisay u sheegtay waxay dhacday qisadan 10:29 daqiiqo sida sheegtay waa yani habeenimo 10 4 saac habeenimo 4 saac bar habeenimo ee dhacday qisada soo marka waxay tiri qisada intaysan dhicin oo weerarka ku dhicin gabadhan 7 daqiiqado oo ila soo hadlay wuxuu dhigay waxay noqon doontaa yani habeenka kuugu dambeeyay oo aad qaadatid baashaal ama socod aad qaadatid noqonaysa hadii aadan aqbalin ama aadan yani maxaytood respect gareynin oo aadan gadaal ii soo celin oo gurigeyga ilmahayga awlaadeyda aadan ku soo celin waad ka shalayn doontaa wax ay noqon doontaa last ya fahanteen waxay sheegtay inay diiday ay tiri ma dhacayso inaan kugu soo laabto mana dhacayso inaad gurigan ku soo laabatid awlaadna ku sii anigana nolosheeda ku soo laabatid sida ay sheegtay ayagoo maraayo meel gurigooda u jirta ilaa iyo jirta waxa dhacday oo guriga yani u muuqday guri sida sheegayaan guriga meel uga muuqato oo aad ugu dhow ayagoo maraayo mar qura rasaas lagu furay waxa dhaawac la iska soo gaaray ayadii waxa meesha ku dhintay ilmihii yara ee 11 bilood jiray waxa kale meesha ku dhintay ayadoo walaalkeed waxa kale meesha ku dhintay yani darawalkii wiil oo darawal u ahaa oo ayada
saaxiibkeed ahaaya meesha ku dhintay isla markiiba waxa kaliya oo fiiriye ninkii yani qof weerarka geysta oo fiiriye waxay tahay in ayada ay dhimatay markuu yani u aqbalay inay dhimatay ay la noqoto sida la sheega oo asigana afkiiska qiranayo uu meesha ka baxsaday markiiba waxaa kusoo baxay dadweyne meesha maraa wixii arkeen isla markii booliska la wacay booliska markii la wacay waa la waday hospitaalka la geeyay muddo kadib way soo naaxday gabadhii yareed hooyadeed ayadii waxay tiri meeday gabadheedii yareed waxa loo sheegay gabadhii inay dhimatay waliba meydkeedii loo keenay loo tusiyay waxa kale loo sheegay in walaalkana in yani dad fara badan ay meesha wax ku gaareen isla markii waxaa la yiri waxaa la bilaabay in wareys la yeesho waxaa la yiri sidee ku dhacdo waxaan yani in waxaan inay dhacaan sidee macquul ku tahay noo sheeg waxay tiri ninkii aan kala tagna waxay aad u jeclaay gabadhiisa oo dhowr mar uu la kulmay يعني meelaha xadiiqadaha ahayn ama beeraha lagu nasto nasashada waqtiyada oo qofka fasaxa leeyahay ama uu dadka kula ballamo kula kulmo meelasan dhowr mar ugu geeyay gabadhiisa ay yani dareen gooni gelis uu jeclaaday soo markuu wuxuu yiri gabartaas ii jeclaan cunugtaas ii jeclaan ma raba in sanadkeeda oo buuxsamo ani ayada oo gurigooda nooleen ani asmur dheer kadib daqiiqadii ugu dambeeyay ii qabtay booliska la soo sheer garay oo soo sheegay qofaan asiga ahna ima soo weerarin waxaan u baahnay in asiga la ii soo qabto maadaama gabadheedii dhimatay in asiga la ii soo qabto isla markaa ninka baadigooba loo galay waxaa la soo qabtay asiga oo raacay yani tareen raacay oo raba inuu u safro meel kale markii la soo qabtay boolisku su-aasha horeysa weydiiyeen waxay tahay sabab aan naagtu weerartay asiga markii boolisku wuxuu weydiiyey su-aal gabadheedii yareed ma nooshahay waxaa la yiri gabadhaadii yareed ma noola way dhimatay laakiin sabab aad u weerartay maxay tahay xaaskaagii hore iyo ilmahaagii wuxuu yiri waxa gaariga ku wada waa nin islaameed weliba ilmahayga ay dhahayeen aabo ayadu weydiid inaan guriga kusoo laabto in awlaadeeda kusoo laabto soo marka sidee ku dhici karta in ilmahayga yar sanad u buuxsanto ayada oo aanan kusoo laaban guriga ma rabin in gabadheeda yar dilo kaliya waxaan rabin in ayada dhimato kadib aan ilmahayga la wadaago nolol iyo farxad aan la joogo inta noloshayda ka dhiman laakiin ma aqaan maadaama gabadheedii yareed ay dhimatay anigana waxaan jeclay inaad dil igu xukuntaan oo aad idil dishaan isla markiiba maxkamaddu way xukuntay waxaa lagu xukumay ilaa iyo 52 sano oo xabsiha lagu xukumay marka meesha wax kaaga cad maseerka markii ragga maseer imaado waxaa waaye howl adag waaye sembrene maseerka dumarka waa wax yar oo gaaban inay inta wax qaadatay ku daqarta ama ay ku dhahdo inabadgeli waaye laakiin nin maseerkiisa waxaa waaye dhimasho gaaraa marka qisada intaas ay ku dhan tahay insha Allah raali noqdo warkaada idinku dheereeyo dhammaantood waa mahadsantihiin Bariis channelka wax yar dhiman hanoola share gareeyo hanoola like gareeyo insha Allah qof kasta oo su'aal qaba waxa igu reebo Instagram kan Facebook insha Allah wixii taliyo tusaalan qaybta comment-ka dhammaantiin waa idin wada jecelahay dhammaantiin waxaa idin wada leeyahay insha Allah peace and love